sheekada horta aan idiin soo wada waxa waaye maaha sheeko maaha qof ii sheega ma waa hadday dhacday hadday dhacday anayna igu dhacday. Halo salaamu calaykum akhyaarta. Markii aan meesha kofeega ka soo baxay intii haddaay daawatay intaan gurigayga imaanayay ayaa haddana arrin kale cajiib waxa dhacday. Sheekada horta aan idiin soo wada waxa waaye maaha sheeko maaha qof ii sheega ma waa hadday dhacday anayna igu dhacday. waxa hadda igu dhacay baa marka idin sheegay. Horta maanta waxay ahayd maalintii ugu horreysay banaanka inta u baxo aan meel oo maxay ahayd toona meel aan hore u tagin 4 bilood oo guriga lagu jiro inaan tagay noqotay maanta. Waxa waaye dukaamada cuntada taga jiro intaan soo iibsan jiray. Alright, haddaay intii fiidiyowgayga hore daawatay intaan way daawan doontaa. Meeshii aan barkaa fadhiyay markaan ka soo baxay oo aan gurigayga waxoogaa dhowr tallaabo u soo jiro bas ka soo degtay ninbaa joojiyay baabuur yar buu watay. baabuurkii buu joojiyey. Foxhole buu ahaa baabuurka baabuurkii markii uu joojiyena wuxuu igu yiri salaamu calaykum. wacalaykum salaam baan ku iri. ninku muslim ma aha Soomaali ma aha. muslimna hadduu yahay haddoona ahayn ma aqaano hawshaydana maba aha wuxuu yahay. laakiin isagu wuxuuna dhex maraa rabaa inaan idiin sheego kabacdiyaa rabaa waxaan idinkaga digaya inaan idin raaciyo. marka aniga maligayba anoo iska foojigan haddee qof weynna waan ahay iska foojigan oo sideedaba iska qaba. maanta waxaa dhacay marka ninkaas baabuur Foxhole watay wuu joojiyey. wuxuu igu yiri see tahay salaamu calaykum. wacalaykum salaam baan ku iri. wuxuu igu yiri waan kuu jeedaa inaa muslimo tahay ma Soomaali baa tahay. isukay raaciyey haa baan ku iri Soomaali baan ahay. wuxuu igu yiri magacaa. waxaan ku iri comfortable kuma yahay magacayga inaan kuu sheego waayo aniguba kaaga ma garanayo. intaas markayna dhex martay buu wuxuu isku dayay inuu yaro weji furan ii muujiyo. wuxuu yiri aniga waxaan ahay nin muslim ah oo walaalkaaya oo Pakistan ka yimid. marka aniga waxaan u jiraa like 3 mitir camal ninka u jiraa. markii uu baabuurka istaajiyaba oo uu joojiyo inaan kula hadlaan rabaa yiriba dhismo iga gadaalaya darbigiisa aad dabada gashta aniga asaa ku soo jeedaa. marka wuxuu igu yiri waxaan rabaa meelahan ma degan tahay. waxaan ku yiri cabaaraan jiraa. cabaarna ma jirin oo meel dhowaan deganaa. wuxuu igu dhahay okay xagee guryahan ka degan tahay. waxaan ku yiri iska ilow taasna maxaa rabto adiga in lagu qabto ii joojisay. marka aniga dhulkan joogaa sabaaburkiisu ku jiraa. wuxuu yiri waxaan rabaa gabar baan wacay oo aan qaraabana aniga meelahan ma degani. marka kaniini baa jira inaan caba ay tahay. wuxuu soo qaaday marka kaniini buu wuxuu ka soo qaaday kaniini dhowr xabo laga cabay. bal sheekada si fiican u dhageysta. kaniini dhowr xabo laga cabay buu wuxuu ka soo qaaday baabuurka asaga kaliyaha saarana kursiga hore u ka soo qaaday. kaniiniga uu tusiyay marka kaniiniga waxaa ku jira marka 6 xabo ku jirto 3 xabo iyo 3 xabo laba saf ku jirto. laakiin 3 iyo 3 iyo 3 9 xabo ka maqan. si fiican ay uga buuxsaday. wuxuu yiri kaniinkan ayaan rabaa biyo aan ku cabo. marka waxaan rabaa gurigaaga inaa igeyso oo biyo ishiso aan kaniinkan ku cabo. waxaan ku yiri biyaha ka gado dukaamanka ee kaniinigaaga ku cab. gurigaaga waa ku geeyahay ma ku geeyahay ma dhahin. waxaan ku yiri taas guri wax la isugu raacaya maahe intaad kaniinigaaga qaadato oo dukaanka kuugu sokeeya biyo ka gadato cab. inta ku yaalo wara dukaanka iigu sokeeya. waxaa anaga dhaba magaalada centerkeeda meel u dhawaan deganaho gadaal u laabo oo halkaas dukaana ka jira. hortaan hadaa u baxdana waxaa ka jira meesha batroolka laga shubto oo leh meel wax laga gato. marka biyo gadee ku cabaanare. ninka wuxuu isku dayay inuu ii qosqoslo isku ka yara jilciyo
siduu u ahaa si ka duwan isaga kay dhigo hadda waa hadda xilligan idin la hadlaayo waa hadda 20 daqiiqa ka soo wareegtay marka gurigayga imid ee intaan dharka iska bedelayay maaragtay jaakadaha ay sibay intaas bas aan ninka anaga ismagna wuxuu isku qosqoslay wax qosqoslay iska kay dhigo maya sister maya abaya sister maya waxba aad muslimataan muslimaan waxaan ku yiri dhagayso adduunka dhan dad muslimiga gaar ah ku wada nool laakiin aniga muslimnimo daraadeed ina inta ku qaato gurigayga ku dhex gashto ma aha ma ku yiri saas la ajligeed biyo lee ma rabtido orado maya kulaha musqulna waa rabaa hadda waa mar dambe isku daalay waxaan ku yiri musqusha biyahaba waxa jiraan ku yiri meel public ka raadsan karto orotag McDonald's xataa waa furan yihiin meeshaas musqushana ka gal biyahana ka cabaar ninkaas horta inta saa anaga dhex marto waa daaniga qofka weyna baryahan dhan waxa laga digayay waxa la yiraahdo lockdown-ka iyo coronavirus-ka wuxuu keenay dhac dadka guryaha loogu galo waxa dhowr siyada qofka dadka loo weeraraya waxa loo weeraraya post office qof oo adoo xabad badirsan oo alaab dalbanba waxa la iska ka dhigaa alaab maarata delivery in lagu keenay albaabka markaa furtana malagaaga galay hora lagugu tuurana annagana Soomaaliya nahayo maba taxadarnaba ilmaheena reerka hida qad inta albaabka furan war waxad yeelaysiin intii naan af Soomaaliga ay aan ku hadlaaya fahmaysay oo wadankan deganay ama wadan kala deganaa dadka aniga da UK aan ka hadloohaa war bal is jira qatara jirtay waa hada laba talaabo oo jira asoo wuxuu rabaa inuu iga dhaadhacsiyo muslima ah adagana muslimaad tahay gurigaaga kaniiniya caba manbala adduunka ma biya laga waayay warheede tuug xariifa horta kaasmaan oo ahayna tuug ahaana laakiin aad isu jira wallahi kaasina tuug xariifa ahay laakiin aad isu jira all sorts of excuses ya marmarsiyo intii la doono alla idinku soo marmarsiyoona ilmaha yararkaana u sheega albaabada ha furin idinka waa weynna ha furina war wixii intaas laga digayay oo telefishinkaas ka fiirsanay oo newska maxay tan ka akhrisanay aaba asoo socdaaba atembated oo isku dayaaba anigi weynayo bi yimidba wuxuu isiri naagtan laafiyo hayso Soomaaliga oo tartiibka u socoto waa ka aqli bari kartaa asoo kaniini qabiya iyo soo bixiyo kulaha kaniinigan cabaayah ee gurigaaga gebiyan ku caba ordo dukaanka gadan ku iri biyo dukaanka laga ma gadan karo horta bal qiyaas waxa ninkaasi sababta marmarsiyada oo ninkaasi rabo inuu gurigaaga ku soo galo gurina ima dhawa xoolaha guriga xoolaha ii dhaw yahay laakiin asaga waxa uga dhiga gurigaaga meelaha inuu ku oolan oo waxba diidayaba inuu jiirooyinka sita ii istaago meeshan galaya si fiirin mar alla markii dambe oo qosqosle oo wuxuu rabaaba inuu baabuurka ka soo dagto waxaan ku yiri meeshaada joog ha soo dhaqaaqin baan ku dhahay وانا كاشكيه بان ku iri waxa aan ku dhaqmeeshana wax wanaagsan maaha dadka aad muslimnimada ku beer la xusanaysana aanoo hadalkii wada marka u arkay inaan hadalka ku adkaynayo ninka baabuurka inta ku cararay oo qubsi oo niman oo maaragtay fundiyaal oo dhismo iyo wax diyaarinaya jidka geeskiisa taagnaaye oo inta xoog huruf ku yiri aanoo arkaya oo baabuurka inta isbiid u waday meeshana waa xaafad dhexdeedo isbiid fara badan maba la ogolo 20 ka badanna ku socotid ma la ogolo it's residence place waay meel la degan yahay waay aanoo arkaya oo 60 ku wada wallahi برسكن سو ما تارجدا يا كقرن إلا هذا وحاش الله يسنى نمكن أنا تارجدا كقرن because ما بقول ديار سنين بقى أحد وحاش الله أنا تارجدا سقرين أما أنا صبر وربل قفك وين أنا قفك وينه إذا قد هذا حسين إنه جوري جاي ده جلسوا كنين وعبه how cheap is that ما هم لينا الميرير المهين الله هطلع وشاقة حالك واحن يهي
dad isku daranaan ku noolna kuwa gaalada ayaa la degana wallaahi kuwa islaamka ha nooga daran oo salaamu calaykum ka soo horeyso aad iyo aad iskaaga ilaaliya ma idinku daahaya aniga ma rabo inaan idinku daaho ma fahamtay ma rabo inaan idinku daaho hadeeraan imid waa iska nasalahay marka laakiin waxaa israha aamusin haddaa aamusto waxaa hadhow waa ilaaweysaa ama waa isdhiganaysaa roob yaroo shuxaha da-aayo ya hadalka marka hore markaan isku fahmi weyna ooba rabaaba inaad soo degto waana nin xoogaa qamarjiyo hasto haddaan isla jirjiroona waxaa laga yaabi lahaa waxaaga inay noqon lahayd laakiin anigana waxaan ku yidhi bartaada ha kasoo dhaqaaqin ha kasoo degin baan ku yidhi gaarigaaga tuug baa tahay anaad iga dhaadhacsinaysaa miya kaniini biyaad ku cabta daraada inaad gurigayga u dhex gasho baabuurka intuu ku noqday oo albaabkii qub xoog la siiya oo anoo arkayo 60 ku wada waana xaafad dhexdeed wallahi war 1 second oo miraq iga yiri baabuurki war bal waxaad yeelaysiin nin iyo naago war bal is jira wallahi oo billaahi oo tallaahi aniga maanta ana la fahayga u yaabay been idin ma sheegayo la fahayga ana u yaabay aniga qofka weynaha oo taxadarayay oo dhagahayga indhayga ba taagnaayeen ayaa la fahayga u yaabay sida la isugu dayaayo in wax laga dhaadhacshiyo albaabada marka la idin soo garaaco ilmaheena waa ku ordaan waa aqaan ilma waa korsado waa kasa inta dhahra faksihay oo sheega albaab lama furi karo hadoo hal qataar laha 10 qataar ku suubsada albaabkiina waa very very dangerous waa xumaad xalka 2020 20 waxwaana tusa sanadkan sideedana waxa hadda adduunka ka jira wallaahi oo billaahi oo tallaahi kii cilmi dhagood lahaa iyo kii diinta si fiican u yaqaanaba wuu garanayaa aakhira samankiyaaba soo dhowba calaamadihiisii oo dhan ay jooga iimaan la-aanta dadka xishood la-aanta dadka sida ay dadku rabaan inay u noolaadaan war waxaan ku leeyahay isku tigaysiga gardarrada kufsiga waxa haye waddankeeniyaaba nabad ku weyne kii islaameed oo nimado wuxuu rabaa inuu islaamaa tahay daraadeed kaa dhaadhacsiyo aad iskaaga ilaaliya ilmahana aad u ilaashada waxaan maqlaayay xataa ciyaal la dafaayo laagtaas mar hore ahayd coronaviruska xataa waa ka horeysa ilmaheenana waa ilmo madax adag waa ilmaha yaryarka ee marka iskoolka ka keento dadka cadaanka ilmahooda hid soo u dhahaayo markuu laamiga ku tago habartiisa u sugaa ama aabiis wixii waday kuweena hore baabuurta u galayaan adoo arkaya miraq ka dhahayaan ha iyo hooyooyinkeena kulligood midiba ay 200 kilogram tahay oo aan socon karin oo aan exercise iyo waxba samaynin inuu kama daba ordi karto hadhow waaba ogtahay kuwan inay indha cadayhaan ay roorayaan gacanta ka qabta yalla idinka dafin ilmaha albaabadana ha furina ilmaha kale oo waaweyn u sheega ha furina dhaha albaabada duul haydan dile wallahi oo billahi talaxadeeda halu istaag anu baabuur igu marida karin ninkaas because qof xoog loo jurmi lahaan ahay cunug yaro dhoocila ma ihi oo la xambaarsan kara ma ihi badlaaki bal ka waran ninka inta baabuur iga daba keena tartiib iga daba waxaan leeyahay baabuurkan gaatamayo tartiib kaaga daba waday xooyay waba yaabanaha saanan u fiirsho hada ugu yaraan 7 jeer ninka baabuurka gadaala u fiiri because baabuur kala jidka geeskiisa til wuxuu fiirsanaaye meel aniga iyo asaga iyo marshabiyeedka aan nahay oo fiirsanaaye oo baabuur kala iga xigin meeshii Georgia ku qabtay adiga muslimaata sister muslim waaba tahay Soomaali ma tahay because Soomaalinimada wajigeena nooga qoran tahay uma ekin madowga kaleeto hay kuugu soo tagasto raba kuugu soo dhawaad maxaa ku xigtay kaniini oo barna laga cuno wax la wuxuu ku saabsan yahay aanan ba aqaan illa soo bixiyo biyaan raba aan ku cabo gurigaaga igey waa gurigaaga ma baadiya gaariga aan aro dukaan ka gado maya waaba ila siimur maaba maya gabadhii aan rabay oo qaraabada aniga meelaha ma deganiye nothing gaaman ka imid kulaha
gabadhii aan rabay oon qaraabada ahayn ayaa telefoonkayga qaba weyd war waxaan ku yiri orda waxaa tag dukaanka tag waxaa u raaciya haddaada xataa biyaha gada karin anaa ku siihaa lacagaan ku iri shilimaadaan ku siihaa ee dhala biyaha ku gada ku sii cabaa hore u sii cab can you imagine wax lagula imaanayo aniga yaaba naxsan yaa allah kuwa yaryarna ilaashta kuwa waaweynna u sheega hadday si kasta u waaweyn yihiin wallaahi u sheega albaabadan ha furina idinkana ha furina nimankana ha furina nin iyo naag albaabadiina aad uga taxadara hal qataar hadday lahaan 10 qataar ku dhajiya waa very dangerous life waay gabar yaro xumo surxno sida taydoo kala haddaan ahaan lahaa ka war bawrka ay kasoo dogto surkii ugu dhigto oo ugu dajilahay laakiin hadda jurmiyaan leeyahay ma jiidi karo haddaan asaga jiidinaaba alxamdulilah iyo baabuurkiis waxaan ku shalaysanahay inaanan baabuurkiisa sawir ka qaad maba ka qaadi karinba because telefoonna iyo diyaar ma ahayn waxba iima diyaarsan roob yaroo shuxaada ahay telefoonada iyo maxaa midna joobka iigu jiro oo jaakada midna boorsada iigu jiro labada telefoon mid aan ka gaaray oo waxta ma xasuusan laakiin wuxuu baabuurka ku wada speed markaan iri I'm sorry I cannot help you markaan ku iri hana soo degin markaan ku dhahay mana ku caawin kara markaan ku dhahay because waa ka shaqeysanahay markaan ku iri baabuurka intuu qubsi oo cararay oo xaafad dhexdeed iyadoo tahay oo wuxuu ku wada 60 waa isnaqaanaay ilaahay baa na deeqee 10 caruur aan dhalnay iyo 6 iyo 7 asa hal mar iskoolka ka soo daldalnaahay maba xukumi karnaa se kala yaacayaane warbal allaha idin la jiro laakiin ilmihiinana isku urursada calooshiina isku keensada taxadarkiinuna ha badnaado. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.